Bismillah saaxiibada asxaabta waxaan maanta ka hadli doonaa go'aan qaadashada faa'iidada ay leedahay iyo weliba sheekooyin ku saabsan go'aan qaadashada. Haddii aad guul rabto, goy kaabada ka dambayso si aadan dib u noqosho ugu muhan. Waxaa jirtay sheeko run ah oo taariikhi ah taas oo hogaamiyo ciidan watay uu qaatay go'aan adag oo ciidankiisii u soo hoyday guul weyn. Wuxuu ahaa Daariq ibnu Siyaad, isagoo badnayn ayuu wuxuu ka tallaabay badda u dhaxayso Morocco iyo Spain, una tallaabay dhanka Andalusia. Kadib markii ciidankiisii ay isku dhaceen ciidankii ka soo horjeeday deegaanka lahaa ayuu wuxuu dareemay in ciidankii uu watay cabsi soo food saartay oo ay dib u jaleeceen meelihii ay ka yimaadeen. Daariq markii uu xaaladda qiimeeyay waxa uu u muuqatay in waxa keliya guul ama geeri. Ma uusan walaacin isla markiiba wuxuu qaatay go'aan adag, wuxuuna amray in dab la qabadsiiyo doonihii ciidankiisa ku soo gudbay. Kadib markii doonihii dab la qabadsiiyey, ciidankii ay u muuqatay doonihii ay ku badbaadi lahaayeen oo bas beelay ayaa waxa uu ku yidhi ciidankiisa, badina waa idinka dambaysaa, cadowgina waa idinka horeeyaa ee xaggee u cararaysaan tolow. Ciidankiisii caad kama sarreyn xaaladda ay ku sugan yihiin oo ahayd inay guulaystaan oo cunto, biyo iyo nololba helaan iyo in ay gacanta cadowga ku dhammaadaan. Haddaba maadaama aysan jirin kaabad ay dib ugu noqdaan, ay ku khasbanaadeen in ay cadowga jebiyaan, sidaas ayayna guul ku soo hooyeen. Nuxurka sheekadaas taariikhiga ah waa muhiimadda ay leedahay go'aan adag ee la qaata. Marka aad rabto inaad noloshaada wax weyn ka beddesho, aadna ka cabsanayso go'aanada ku horyaallo, waxaa habboon in aad jarto wax allaale iyo wixii suurtagal ka dhigi kara inaad ku fakirto ama u muhato dib u noqosho. Ogow, mar allaale iyo markii aad qaadato go'aan suurtagal kaaga dhigi kara inaad himiladaada hanato, waxaa la hubaa in caqabado fara badani kaa hor imaanayaan. Markaa sida Daariq ibnu Siyaad ayaa habboon in aad jarto kaabadaha kugu keeni karo in aad dib u noqosho u muhato. Taladu waxay tahay haddii aad guul rabto, goy kaabada ka dambayso si aadan dib u noqosho ugu muhan. Waa inaad go'aan ka gaadhaa waxaad rabto in aad ku kacdo, inkastoo ay suurtagal tahay in aadan wada aqoon sida aad u fulin lahayd go'aanka. Marar badan ayaa waxaa kaa niyad jabiyo in aad go'aan qaadato sababa ay ka mid yihiin walaac, kalsooni xumo, aqoon la'aan iyo go'aan la'aan aad caado ka dhigato. Sababahaasi waxay kugu keenayaan inaadan arrin go'aan ka qaadan oo aad sugto inta wax walba ay ka noqonayaan sidii aad rabtay. Waxaase xaqiiqdu tahay qofkii suga in wax walba sidii la rabay ay noqdaan inuusan weligiis ku tallaabsanaynin go'aankii u sahli lahaa in uu gaaro wuxuu rabo. Ogow, cimrigaaguna waa tirsan yahay. Haddii aad guul rabto, goy kaabada ka dambayso si aadan dib u noqosho ugu muhan. Haddaba adiga sida keliya ee aad ugu adkaan karto sababaha dadka ka niyad jabiyo in ay go'aan ka qaataan arrimaha adag ee la soo gudboonaada noloshaada waa adiga oo bilaabo go'aan qaadasho. Sida kale oo ay suurtagal kugu noqon karto in aad wax cusub ku tallaabto, waxa aad horay u samayn jirtayna ka tagto waa go'aan qaadasho. Go'aan qaadashadaasi ayaa keenayso in aad kaabadii hore jarto, mid cusubna u gudubto. Nin ayaa wuxuu soo hormaray guri ay dayrka hore fadhiyaan nin iyo ey. Ninku wuxuu ku fadhiyaa kuraasta la isku ruxo, eyguna wuxuu fadhiyaa sagxadda.
markuu dhaafayay ayuu wuxuu maqlay eyga oo ciyaaya, ciduna tahay cod muujinayo in jiro ama dhaawac xun uu qabo. Intuu istaagay ayuu wuxuu weydiiyey ninkii kursiga isku ruxayay, maxaa eyga hayo? Ninkii intuu eygii fiiriyey ayuu wuxuu ku jawaabay, waxbo. Markii uu ninkii socdaalkii ahaa damcay in uu socodkiisii sii wato, ayaa eygii sidii oo kale ku celceliyey, cidi. Intuu joogsaday ayuu isaga oo ka walwalsan dhibaatada eyga hayso oo ninka iska lehi uusan danaynayn ayuu ku celiyey mar kale, war eyga dhib baa haystee maxay tahay? Ninkii intuu qoslay ayuu ku jawaabay, wuxuu ku fadhiyaa mismaar. Ninkii socdaalka ahaa ayuu wuxuu weydiiyey, oo muxuu uga kici waayey? Ninkii eyga lahaa wuxuu ugu jawaabay, xanuunka mismaarku ku hayo waa heer uu gunuunaco ee weli ma gaarin heer uu go'aansado in uu ka kaco mismaar. Sida eygaasi uusan u go'aansan in uu mismaar ka kaco, inkastoo uu xanuunka ku hayo uu ku gunuunacayo, ayaa dad badani xaaladda ay ku jiraan ay tahay mid aad ugu gunuuniciso, balse aysan gaarin heer ay go'aansadaan in ay beddelaan xaaladooda. Qaadashada aad qaadata go'aan kadib markii aad falanqayso arrinta aad ka qaadanayso go'aanka waxay kuu diyaarinaysaa in aysan kugu imaan xaalad aad la gunuunacdo ama ka qoomamayso go'aan qaadasho la'aanta awgeed.